السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أردينا شرفت بدنا كحنا رجع أكاديمي. مركي قاركود دتكم مركي سويديان ويرهدان وامحي long term investment. مركا هو الرئيسة كوصلي النبي جينا حبيب كينا عليه أفضل الصلاة والسلام سيدو إلهي سبحانه وتعالى هو أمري يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كلمة long term investment وحوية مال قشي aad waqti dheer la sugtay lacag aad meel gashatay iska daysay waqti dheer kadib lacagtaas oo meel sare ku gaadhay yani adigoo price hoose ka qaatay oo markuu meel sare gaadhay iska iibi مثلا example yar baan qaadanayna haddaad مثلا tirahdid coin baad aragtay kamid a coinka cryptocurrency-ga مثلا Polkadot oo kale lacag fiican baad haysataa مثلا waxaad haysataa $1,000 kunkaagii dollar waxaad aragtay price yar iska macquula مثلا waxaad tiri coinkii oo maraya iska badhay مثلا 9.4 baad ka qaatay markaynu eegno waqtigeenu qaadanay waxay ahayd iska dha December bay dhamaadkii December 2020 مثلا lacagtaada waxaad haysatay sanad iyo bar iska badha yani ilaa meelaha iska dheh مثلا waxaad tiraahdaa April 2021 yani sanad iyo dhowr bar iska dheh maalgashigii aad samaysay ama investmentkii aad samaysay lacagtii aad gashatay مثلا haddaynu xisaabino مثلا waxaad gelisay $800 priceku marka aad ibsatay wuxuu ahaa 9.4 waa soo maaha wuxuu ku siiyey 85 xabadood oo dot ah coinka halkan ku aragno coinka markaad iska iibisay waxaad iskaga iibisay pricekiisii oo gaadhay 36 iska badhe waxaad ku dhufataa 36 800 waxay ku siisay $3,063 macnaha percentage-ka aad heshay waa 283% oo faa'iida waa la wax moogtay ma sha Allah muddada aad ku jirteen wax weeye waa 147 casho waqti dheer weeye kan example weeye يعني قف جليس 800 dad baa gelin kara 5,000 dad baa gelin kara 4,000 dad baa gelin kara $100 waxay ku xidhan tahay lacagta adigu aad gashatay meesha dad baa meelaan kaga baxay dad baa wali iska haystay oo intay meelaan kaga bixlaayeen uu la soo daatay inkastoo ay meel fiican ka qaateen laakiin markii la soo daatay still wax weeye wuxuu marayay taqriiban yani $13 iyo wax ku dhow marka long term investment wuu noqon karaa sanad iyo dheeraad weeye dadka qaarkood subxaanahu laga yaabaa inay meelaan ka qaateen ilaa iminka iska sugayaan ilaa iminkadan dad baa jira walajada ku haysta rag investor jiro waaweyn oo xitaa ajnabigan kriptada ka shaqeysta wuxuu ka qaatay مثلا meesha tan investment buu ugu talagalay maalgashi inuu ku sameeyo ilaa iminkada مثلا halka kan waxaa tiraahdaa waa bishii April 23keedii klikusi intee cashu hayay wuxuu hayay 819 casho yani ku dhow 2 sano iyo dheeraad weeye intaas oo dhan buu haystay qofkaasu uu isleeyahay مثلا ka faa'iideyso mustaqbalka وارتي وحكاها أخيارته دد باجرة من مالنتو Polkadot سوق على سوق باينانس طبعا سوق باينانس Polkadot من مالميو Polkadot سوق على سوقه دد باجرة يبسدي يسقى أو برايس كيسو مرة مثلا إسكده $6 ويبسدين إلى أنت ولا سوقيا ما أنت ذن جولاي يعني شو كانوا ويكن طبعا كانوا ويكلي ويا برنامج كانوا ورقنا ويكلي ويا دد با إلى وقت جاهزتي حتى الكا اكتيد وحي هيستين كن يصدح بقول يشن يستيتن عشو يعني تقريبا وأفر سنة dad ba 4 sano haystay mana taaban mana iibin mana gadin halkaas isaga taala oo dad lacag haystay oo suuqa ka shaqeysta xaqiiqatan oo walad bay geliyeen waladyadana sida mesela waladyada lajanaano oo kale akhyaarta lajanaano waa kagu mibsantaa la socda waladka lajanaano waa kan ay dadka badankood ee investorka waaweyn lacagta badan haysta waladkaas isticmaalaan waa cold wallet weeye insha Allah dhawaan waxaan sameynayaa course ku saabsan lajanaano qaabka looga faa'iideysto lacagaha loo gashado gudihiisa loo kala iibsado troubleshooting-giisa waxyaalahaas oo dhan insha Allah taala waan ka hadli doonaa video baan kaga hadli doonaa dhawaan marka insha Allah isha ku haya Somali Cryptofolio ku xidhnaada platformka markasta ku xidhnaada kursooyinkan quality-ga ahna waad ku aragtaan alxamdulillah Allahumma lakal hamd baan markasta niraahna oo inay dadku maalin kasta inagu soo biiraan platformkeena marka taasna waa guul weeye ma sha Allah tabarakallah marka investing lagu sheegayo maalgashiga long term investing waa noocaas oo kale noqon kara qof baa sanad iyo dheeraad 2 sano 3 sano 4 sano 5 sano dad baa ugu talagalay bitcoin inay haystaan yani 20 sano xitaa oo kale baalkan ma baabaayo waa baal mustaqbal fiican weeye oo ka faa'iideysana marka akhyaarta investingku wuxuu ku xidhan yahay lacagtaad gashanaysid meesha wuxuu ku xidhan yahay sabarkaad haysatid iyo dulqaadkaaga wuxuu ku xidhan yahay sidaad ula socotid suuqa kan laana waxa laga yaabaa coin kamida coinanka adoo meel gashaday investing ku sameeyay coinkii dhibaata ka dhacday ama teamkii baa isqabsadeen waa lagu kala tegay ama dawladda ku dhigan taas lafteeda ka fiirso investingka aad gashay markasta la socota muhiim weeye waxyaalahaas oo dhan in badan baan ka hadalnay YouTube-ka dib ugu noqda insha Allah taala Raja Academy waa platform qof kasta oo xiiseeya cryptocurrency ama raba inuu macluumaadka ogaado uu ku baran karo koorsooyin ku baxaya afka Soomaaliga loona diyaariyay si casriyeysan haddii aadan hore u maqal cryptocurrency waa lacag digital ah oo la qorsheynayo mustaqbalka dhow inay si official u gaarto caalamka oo dhan walow meelo badan oo adduunka ah hadda laga adeegsado sidoo kale cryptadu waa meelaha ugu fiican ee la maalgashto platform Raja Academy waxaa ku xiran kumanaan arday oo jooga dunida daafaheeda koorsooyinka ku jira waxaa loo agaasimay sida ay u kala horeyso fahamka cryptada sida introduction basic intermediate iyo advanced oo mid kasta aad ku sii fahmayso ahmiyadda lacagaha digitalka ah sida ay u bedelayaan dhaqaalaha caalamka iyo ka muslim ahaan sidii aad qaab xalaal ah ugu shaqaysan lahayd
sidoo kale platformku wuxuu leeyahay qayb blog ah oo si joogto ah loogu soo gudbiyo waxyaalaha cusub iyo farsamooyinkii soo kordhay markii aad iska diiwaangelinayso kooraska waxaa muhiim ah inaad account ku dhex samaysato webka kadibna aad doorato payment option kugu habboon haddii aad joogto Soomaaliya ku bixi EVC Plus-kaaga haddii aad ku sugan tahay qurbaha isticmaal credit card-kaaga haddaba si aad u hesho caawimaad joogto ah nagala soo xiriir linkiyadeena Telegram iyo WhatsApp mahadsanid